السلام عليكم سدواد مقالدين دبشاد ميديا iyo mar kale waxa leeyahay asxaabtan dawlad naga mashquulshan bariya nagu mashquula maanta waxa la joogaa odigii weynaa ee meesha iskala milkiili naasir soo dhaw waan dhawahay asxaabta xaaleeday hada saxaabta salaamaya ma kasta joogtaan waxaan idin leeyahay soo dhawaada maalmahan in badan baan kala maqnayn cilad yar oo nagu timid farsamo laakiin hadda dib boo soo laabanay maanta halka waxaan ka sheekeyn doonaa qisaro naasir ku dhacday qisaasan doonaa dee waa wada sugaynaa inaguna waa sugaysiinana waa sugayaa dhamaan waa wada sugayaa inuu nooga yara faafaan hortaad baad maasantahay adiga nasrin waraadan dad badan ayaa isla naasir waa kuma soma naasir qisadiisa dhabta in ogaadaan horta naasir waa wiil naasir cabdullaahi leeda ku dhashay caasimadda Hargeysa ku soo barbaaray Gabiley soona ku soo barbaaray Itoobiya hadda ku nool Gabiley waka maga aan qisada guda galo horta qof walba qisuulay soma marka qisadan ku bilaabo horta qisooyin jacaylna way soo mareen qisooyin kalena way soo mareen adoo teeban ku fasira qisada jacaylka horta maadaama anaga xagga jacaylka isku wanaagsanay qisada jacaylka dad badan halkaas jacaylka inay igu ogaadeen bidooniya horta waxaan qof jacaylka ixtiraama marka aan kaftan ka tagano riyali jacaylka ka dambeeya waliyan waxaan khiyaamin balse la khiyaamo gabar kasta marka aragto fadhiga isbedel keenayso waka magaratay waa ka xunahay gabadha haday fadhiga kaaga tiga caleena gabadh maadaama wad luga leedahay aduu qofku fadhiyo waxa lagu yiri walaaleen lugaade ku wax qaada lagu yiri samaha ilaahay baba neeriba qofka fadhiya qofka taagan wax qaata loogu baahay ka xumayda wax dhibaato ma qormay ku dhacday qisada jacaylku horta laba qiso laakiin qisan ku soo qaadanaya waqti xadirkan taagan horta qofna marna qofka uu u jeedo mustaqbal marna waa marda qaraxiisu soo u jeedo ana hadda wax u jeedo mustaqbal taan ku nasalaha taan ku degi laha magaratay taan de noo doona taan dimeesho marano adan ma safrada waayo nin kasta wuxuu ku hamiya raaliyo magaratay ilaa ku si nin kasta wuxuu ku hamiya gabar raaliya gabar waxaan ku wanaagsan gabar abeecda gabar ixtiraamta magaratay insha Allah inta haystaan waxa leeyahay wada haystiine laashada intaana haysan anigu aan ka hayna الله نسيه آمين صح marka gabadhu waa gabadh wala jeclay in aan shay hadda ku nooshay magaceeda gabadha waxaan isku barnay si fudud de kulli qof intu ahad ka qaaday oo balan kula galay aan hadana waqti ka dhaweyneen kula hadleen waxaan ku wili ku jiray waqtigii aan soo marnay oo qaraxis ku jira iyo kun baan ka hadiyo kuwa ka raacaan garanaysa oo ku jira ma garanaysa marka nimad waxa weeyaan aan waxa leeyahay qalbiyada hal isku dawro qof walba qofka jeceshay waayo kana maanta jeceshay aad ku ciyaaraysid maadan amaanta hoganba yaad ogaan doontaa waa nafsiga gasha bari oo ku soo mara qofka maanta qiimihiisa garan weeyay bari ka maalin ba ogaan doontaa laakiin waxa ay xariif fandhalay dhaceen waxa adiguna adeeqay tiigu aad lacagta la gashay amba nafsiga gashay waa qofka marka jacaylka la gelisay amba walanta Soomaaliyeed sida ugu badan ba tageeradeen jacaylka waxa ka aaminsan qaraxo waa qofkan axyo la gashay hadana jacaylka la wadi kareen waa qofka mustaqbalkiisa haka lumin magaratay way wax kasta wax ka miisan walaaltinimada waa qofka hadana jacaylkii daacad u noqoneen walaaltinimada sheega walaaltinimada yaa qaalisan magaratay waa qofkan waxa ku rumeynaya riyadii oo jacaylka ka aqbashay qofkii rajigu sameeyo garanaysa waa qofka aad u dareemi kartaa oo qofka deesba qaraxaysanaya deesbadu waqti kugu bixinay garanaysa waxa laba qof oo labadii wulid noloshu idin cusub tahay laakiin qof maanta soo ka doonay mustaqbal oo ku ubadkayga hooyad ban noqon oo ku maanta mustaqbal noqon lugaha ku socod lahayn noqon tan qeyr ku dhaafi lahayn noqon magaratay insha Allah qofku de markuu xaraansanayo iyo qofku markuu xaqiiqay ka tahay isku hadaf ma aha waan leeyahay isku hadaf la noqdo dad xaraamansan sida wala dad kula xaraamansan raadso dad xaqiiqo baahantooda mustaqbal haysanayna qof de mustaqbal la raadso waa garas adiga laftaada wada qofka xaraamansanaya iyo de qofka mustaqbalka raba qasad marka soo koobantaa qasad waxa kasma garatay laakiin hal talaasan iyo dadka jecel kulli waana hadal dhaxal gal ah ma mid beesay ama miliyaagan intii aan baday caalamka isbedelay waxaan muddo inay jacaylka uu noqday mid lagu ciyaaro guurkii noqday mid lagu ciyaaro wali waxa aad inuu ku soo badanay shayga baxsiga hilaa baxsaday alkoor gabdheena hore waxa gabdho sharaf lagu doon jiray waa qalkooda jooga ma garatay marka aan waxa leeyahay gabdho marba sharaftina aliya sharaftina ma garatay walaalka sharaf ku kaftamo
walaalkaa sharaf suuqa ku maro laakiin mid su'aal baan rabaa inuu ku weydiiyo kaxaysigu macaba kaxaysigu taceeb maaha aan ku sheego kaxaysigu waa laba kaxaysigu qof aad jeceshahay amba faamiliga ay ku adkeeyaan baa qabad timaado waa raaci kartaa taanu kuma diidin oo jacayl waa sarca moogtay laakiin shaygan xiisaha la dhaaba jira in gabadha ninkii raacday xiisi ku raacday waa la isku xanaaqaya ma garatay amba ayadii inaan nabadeed ku weyday ay meesha soo noqonaysaa isagii waa in si waxba ku noqonayo ma garatay marka marba aan waxa leeyahay mudnaanta koobaad hal si jacayl ku leeyahay ma garatay qoysaskana si gaar oo la hadlayo qof walba waxa leeyahay qofka jeceshahay waayo inantaadu maanta kay ku keento wax la leh hooyo kasta Soomaaliyeed ma garatay inantaadu inay ku keento waa inuu guurisa inanta ayna talaabo qaldan qaadid amba wiilka ayna wax qaldan iskula sima garanaysa waayo hooyo kasta Soomaaliyeed inanteedii ay ka war haynayso oo xaalkeedu og tahay way abasha qaru xajir adag amba qabiil ku xidheeyay goorna in kan sma geenaan bad kuna nidaal ma garanaysa amba dawladda u yeeriyo noloshiisa ma garanaysa laakiin hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo wax dhashay way dareemi kartaa jacaylka ma garanaysa way inanteedu inay wax la qaldan sameeyso ma ma garanaysa marka waxa leeyahay jacaylka bacdaha la noqdo wardado dhalinyaro gabdhahana qalbigooda hal ilaaliyo ragga si gaar u la hadlaya waxa jira rag gabdhii jacaylkoodii ka faysanaya oo gabadhii wax la qaldan u la tagaya gabdhaheenu waa la muhraan way gabdhuhu waa qayb kamid ah nolosheena hana la ilaaliyo gabdhaha waxaan leeyahay aniguna dee in yar baan odhanayo wax badan horta odhan maayo dee wixii la odhan lahaa waa la yidhiye waxaan leeyahay dadka isjecel ama dadkan iskhiyaamaya qofka markaad khiyaamaysid qofka waxaa kaa dhigtay noloshiisii oo dhan wuxuu kaa dhigtay hadafuu kaa leeyahay mustaqbalku kaa leeyahay wuxuu rabaa ubadkan u dhali doona aabi amba hooyadii inaad noqotid waxaan leeyahay qofku markuu ku jecel yahay walaalo wax kasta oo noloshiisa kamid uu ku daryeelay daacad buu ku siiyey daacad buu ku noqday haddana waan khiyaamaya taasi la iska meelay waxaan leeyahay daacad la isku noqdo horta in hada ka dhexdar horta khiyaanadu ma bitmaada sama waa qofkan horna sheego waxa ku marka labada qof isfahmaan horta wax kasta isfaham ugu maada maanta geedka marka beeraysid geedka biyo badan hela oo dad manaafacaad badan hela geedku hadda si fiican buu qurux badan sama laakiin hadda qof walba hadduu noqdo qalbi wax kasta qaadan kara ma garatay taado adigana waxa ka hadlamay dooqaadi ma garanaysid ka jeceshay iyo ka ku jecel ma garanaysid waayo dawaadigan qof walba waqti siinay ma garanaysaa ana waxa ileeyahay qabeed hal isku dawro hagan waxa si gaar uga salaamaya saxaabadan nasr nuur aadan oo kamid ah saxaabtayda oo ila soo halgantay runtii anay marba garbahaygiya wallahi aqabad kasta ila soo martay maalinka bartay ilaa maanta wajigan ku bartay ila hortaagan idhiirisa marba igu dhiiri gelisa waxaan ku leeyahay halka janan noqoy allana waxa fuulay dambiga waalidka dhaafo ma garatay sidoo kale asxaabta kale garbahayga taagan maxamed ibraahim kamermanka Khalid Bashir Saxaaq ifrax wada leeyahay alla qoyska ku barakeeyo adiga gaba idinka salaamaya noqda ku ubadkooda arka insha Allah adiga qoyskaagana hadan baraka salaamaya ma garatay sidoo kale ilaahay maayo xamda saleebaan ayna garabtay taagan xamda saleebaan aaw marti ma dhigi kara waa garbahaygeena ma garatay dawaaka dhammaantood salaamayna asxaabta Damascus Media waxaa leenahay inuu dadaal baan bixinay inuu dadaal lagu bixiyo walaalayaal waxaan doonaynaa halka qeyrkii gaadhin inaanu gaadhno insha Allah inagana na gaadhsiin